Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada janaalka Somali Tutorials. Fadlan janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar, sidoo kalena muuqaalka inoo la garay. Haddii aad hore inoola joogtayna waxaan ku leeyahay mar labaad shuru. Muuqaalkan waa muuqaalkii saddexaad ama part 3 ee aan kaga hadlayno nijiska ama mowduucyada ugu lacagta badan. waana midkii ugu dambeeyay ma jiri doono muuqaal kale marka aan ka soo sameyn doono niche ama mowduuc lacag laga sameeyo. dadaalkan iyo intaan dhan waxaan baaritaan aan u sameynayo aan wax u soo duubay waqti aan u gelinayo waa idinka in marka aad gaartaan successful ama horumar inaad ka gaartaan bloggingka. saaxiib haddii aad hore inoogu xirneed waa okay, haddii laakiin aad nagu cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto halkaan aad nagula saaxiibto gambaralkana aad furato abdheed walbo sida uu kuu soo gaaro. waayahay haddii aan part 3 aan u guda galno niidka koowaad ee top 5 kan aynu ku qaadan doono waa niidka la yiraahdo automotive niche. niidkan waxaad ka sameynaysaa kunkii soo booqdayaal ama kunkii visitors lacag dhan $5.44 ayaad ka sameynaysaa. sidoo kale number 2 ama numberka labaad waxa inoogu jira niche la yiraahdo ama mowduuca la yiraahdo music niche. mowduuca musica ama heesaha haddii aad ku takhasustay aad soo qori karto aad iyagoo video aad soo geli karto kunkii soo booqdayaal waxaad kaga sameyn kartaa ama aad ka heli kartaa lacag dhan $5.44. dabcan dhalintu waxyaalaha ay xiiseyso ama adduunka marka saddex loo qaybiyo laba qayb kamid ah waxyaalaha ay xiiseeyaan waa music iyo sports iyo film waxyaalaha nooca ah. kullee inaad ka faa'iideysataan ayaan rajeynayaa dhalinyaro. waayahay waxaan kuu sheegay labo niidka saddexaad ee aan rabo inaan kula wadaago aanan kuu sheego inta aad ka faa'iideyso kunkii soo booqdayaal waxa uu yahay niidka la yiraahdo web design ama development ama web development ama web design sida u taqaano. niidkan ama mowduucan haddii aad takhasus aad u haysato waxa aad ka heli kartaa kunkii soo booqdayaal ah ama kunkii visitors waxa aad ka sameyn kartaa lacag dhan $4.76 ayaad ka sameyn kartaa niidkan ama mowduucan. mowduuca afraad ee aan ku muuqaalkan inta aan kuu sheegin waxa aan ka codsanayaa janaalka inaad subscribe inoo saarto, sidoo kalena muuqaalka aad inoo la gareyso asxaabtaadana aad la wadaagto inta aad awoodo saaxiib. gambaraalkana ha iloobin si markaa wax walbo update ah ay kugu soo dhacaan. mowduuca afraad ama niidka afraad waxaa la yiraahdaa food and drink. cuntooyinka iyo cabitaanka inaad ka hadasho sida waxyaalaha cuntada ugu wanaagsan cabitaanka ugu wanaagsan cabitaanka oo waxaas inaad ka hadasho. marka food and drink haddii aad ka hadasho kunkii soo booqdayaal ah waxaad ka sameyn kartaa $4.76 ayaad ka sameyn kartaa isagana. haddaba waxaan rabaa inaan kula wadaago niidkii ugu dambeeyay ee marka aan kaga hadli doono mowduuc oo dhan. sidoo kale niidkii ugu dambeeyay part 3 aan hadda duubeeno ama hadda aad daawanayso kama dambeyn doono wax kale oo niche la yiraahdo oo 15kii ugu xushaneed 3 video ayaan kaga sameeyay part 1 part 2 iyo part 3. haddaba the question aad isweydiinaysaa waxay tahay muxuu noqon karaa niidkan ama muxuu yahay niidkan. niidkan shanaad ee top 5 keena ugu dambeeya ee part 3 ugu dambeeya waxaa la yiraahdaa gaming niche. yacni game inaad soo gudbiso inaad game ka hadasho in game waxyaalo la xiriir aad maanta dhan soo qorto ku linkiyada laga heli karo meelaha lagala digi karo iyaduna aad baa loo raadiyaa waxyaalaha laga faa'iideysan karo ka mid ah. okay su'aasha isweydiinaysaa waxa ay tahay gaming niche imisa ayaan ka sameyn karaa ama imisa ayaa laga sameeyaa kunkii soo booqdayaal ama kunkii visitors. kunkii soo booqdayaal ee game ka xiriira dhinaciisa ka yimaada waxaad ka sameyn kartaa lacag dhan $4.76. saaxiib ku dhawaad 1 milyan oo niche ama 1 milyan oo mowduuc ka badan jirta adduunkan kaliyana waxaan kula wadaagaa 15. dariisan ama sababta aan kula wadaagan waxay tahay waa 15 ugu wanaagsan ugu sarjiga badan ugu waxtarka badan ugu dhaqaalaha badan.
haddii marka intaan aan soo sheegay saddexda muuqaal kulli inaad daawata ayaan rajeynayaa mid ka mid ah ama yacni kuwa aan inta ku sheegin haddii aad soo gudbiso inaad iska dhaafi doonto ayaa kuwo kale ku bedeli doonto ayaan rajeynayaa saaxiib marka weli waxaan kaa codsanayaa haddii aadan janaalka subscribe saarayna subscribe aad nagu dhiirigeliso sidoo kalena muuqaalka aad inoo la garayso ha iloobin inaad gambalaalka furto si markaa abdeydi fara badan oo soo socda aad kaga faa'iidaysato halkan dhalinyarada ayay u furan tahay kulli dad badanna way ka faa'iideen oo maanta positive ah kuwo kalena inay ka faa'iidi doonaanna waa rajeynayaa ugu dambeyntan iyo muuqaalka xiga sidaa ay nabadgelyo